waxaa galankii hore maanta magaalada Kismaayo ee xarunta kumeel gaarka maamulka Jubbaland soo gaaray safiirka dawladda Qatar u fadhiya Soomaaliya Mudane Xasan Xamza waxaana garoonka diyaaradaha magaalada Kismaayo Said Maxamed Cabdulla Xasan ku soo dhaweeyay madaxweyne ku-xigeenka koowaad ee maamulka Jubbaland Mudane Maxamuud Said Aadan waxaana sidoo kale soo dhaweynta ka qayb qaatay qaar ka mid ah wasiirada dawlad goboleedka Jubbaland. safiirka iyo madaxweyne ku-xigeenka koowaad ayaa si wada jir ah xariga uga jaray mashruuc horumarineed oo loogu talagalay carruurta agoonta ay ku nool guud ahaan deegaanada Jubbaland. munaasabad kooban oo xarig jarka lagu qabtay ayaa waxaa warbaahinta la hadlay madaxweyne ku-xigeenka koowaad ee Jubbaland iyo safiirka Qatar u fadhiya Soomaaliya. waxaa sharaf weyn oo maanta inaan waftigan ballaaran oo safiirka Qatar iyo dawladda federaalka Soomaaliya mas'uuliyiinta ka socoto iyo hay'adda Qatar Khayriya aan soo dhaweyno dowlad goboleedka Jubbaland wasiirada iyo xildhibaanada waxay u socdaan mashruuc Qatar Khayriya ay halkan ka fulisay oo aan hadda tagi doono oo xariga ka jari doono haddii alla idmo kadibna waftiga madaxtooyada ayaan booqasho ugu tagi doonaa madaxweynaha aad iyo aad baan ugu faraxsanahay sharafna noogu tahay booqashada ay جدا أنا سعيد بتواجدي اليوم في كسمايو وهذه أول زيارة لنا وأرحب بالإخوان وسعيد باستقبال الحار والهدف من زيارتنا إن شاء الله افتتاح مشروع كبير نفذ جميع قطر الخيرية booqashadan ujeedadeedu waxa weeye inaan furno mashruuc weyn oo ay Qatar Khayriya ka diyaarisay halkan وإن شاء الله بنلتقي بالرئيس أحمد مدوبي إن شاء الله madaxweynaha oo la kulmayna insha Allah salaamina Axmed Madoobe ونؤكد يعني على دولة قطر تدعم الصومال واستقرار الصومال adkeynayna inay Qatar ay kaalmeynayso Soomaaliya iyo deganaanshaha Soomaaliya وإن شاء الله بندعم بعض المشاريع التنموية في الولاية إن شاء الله يعني. sidoo kale waxaan dacminaynaa mashaariic horumarineed hadii la yiraahdo oo Jubbaland إن شاء الله بتكون في زيارات قادمة في المستقبل إن شاء الله. ziyaarooyin kale ayaan ku imaan doonaa hadii la yiraahdo mustaqbalka. وشكرا جزيلا لك. xarig jarka kadib ayaa safiirka waxaa loo gudbiyay madaxtooyada Jubbaland iyadoo la filayo saacadaha soo socda inuu shirar gooni la yeesho madaxweynaha Jubbaland. xasan khamiis cali waama TV magaalada Kismaayo.